labadan much iyo many aad bay dadka ku qaldaan balse halkan waxaynu ka arki doonaa waxay ku kala duwan yihiin much waa wax badan many iyaduna waa wax badan marka micno ahaan waa isku mid waxay ku kala duwan yihiin much waxaa loo isticmaalaa uncountable nouns wax markay yihiin wax aanan la xisaabi karin sida biyaha saliida walxaa noocaas waxaynu isticmaalaynaa much many iyadu waxaynu isticmaalaynaa countable nouns walxaha la xisaabi karo is that clear maxaan dhahay much waxaynu isticmaalnaa uncountable nouns manyna countable nouns inta haddaynu kala fahanno tusaalayaashan markaynu isla aragno hadda books waa countable waa wax la xisaabi karo maadaama ay countable tahay maxay qaadanaysaa many waxaan leenahay many books for example the teacher brought many books macallinku wuxuu keenay buugaag badan Soomaaliga marka many ayay qaadanaysaa water waa uncountable maadaama ay uncountable tahay maxaynu saaraynaa much water okay boys waa wiilal waa wax la xisaabi karo hal wiil laba wiil saddex wiil Soomaaliga marka maadaama ay countable noun tahay waxay qaadanaysaa many boys yes money waa lacagtu waa uncountable funny enough haddii dood aad ka qabtid dadka luuqada leh raadi okay marka many waa uncountable marka waxaan leenahay much for example waxaan leeyahay I don't have much money lacag badan ma haysto cars waa wax la xisaabi karo waa countable nouns so jawaabta meeshan maxay noqonaysaa many cars my father has many cars abahay wuxuu haystaa gaariyaal fara badan ama gawaari fara badan I hope you have understood and at least you have learned something so until next time stay safe and God bless you bye bye